xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa shaaciyay inuu u tartamayo kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland oo dhawaan lagu wado inuu baneeyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. xildhibaanku waxa uu hankiisa musharaxnimada gudoomiyaha golaha wakiilada ku shaaciyay kulan ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland, madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka. xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa sharaxay sababaha keenay inuu isku soo sharaxo kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada. hortiina dadka karaamada leh ee uu tiriyay Cabdi Cabdulaahi inaan hortiina kaga dhawaaqo inaan u sharaxnahay gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland. cidna wax ka sheegi mayno, cid aanu hadda halkan wax laga odhanayaana ma jirto. waxaanu arkaa markii dadku bilaadanka intaa la eegide iskama imaano kulli fikir iyo talay ku yimaadeen. markaanu isxansannay oo dhan kasta u wareegnay oo aanu wada tashanay waxay ka badin weydi in aan kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada dadka halkan jooga uga noqdo wakiil. sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada, siyaasiyiin, madax dhaqameed ayaa soo dhaweeyay go'aanka xildhibaanku ku gartay inuu u tartamo gudoomiyaha golaha wakiilada. oo day waajibkiisana tahay nin laga baryaya ma jiro. maalin walba bawda qaawan haddii aanad maalinta ay kugu soo beeganto asturin bawdada adla maalintaada bawdadu sidaasay u qaawanaanaysaa. wax jirayaa ma jiraan. marka waxaan ku soo gabagabaynayaa murashax matalan Saleebaan Cali Koore waa nin aanu muddo badan soo wada shaqaynaynay, waa nin aan aqoon u leeyahay, waa nin asxaabtaydii iga horreysay oo dhammi uu sheegay. maanta isaga naftiisu amaanintaa ka badan ma qaadi karo. waa la muujiyey taageeradii Saleebaan waa inoo sharaxan yahay. waxaan ka codsanaynaa marka xildhibaanada codka leh inay tixgeliyaan codsiga iyaga ah oo ah inay Saleebaan u codeeyaan si uu u noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada muddada xilka ka hadhay inta doorashada laga gaarayo. cusub baan ahay dhulka markaan marayay dhul ballaaran oo aanan ku filayn inaan codkii halkaa laga sheegay registrationkii la noo muuqday ninkii kala soo saari lahaa waan qabaa inuu yahay. dhulkaasi waa aag ballaaran weeyaan ilaa iyo Saleex dalasu tilmaami mayno ilaa iyo Buuhoodle sida arkaysay ilaa iyo Ceergaabo rag badan buu u baahan yahay oo firfircoon. hadal ma harin. waxaan u malaynayaa dee manaynan gabay ku sheegnun baa hadhay. anigu intii gabaygaan odhanayaa waxaan leeyahay gabaygii Saahid Qamaan baa soo qaadanaya oo leeyahay rag waxaan ku maamuli ama ku maamuusi mase inaynu nahay tuliba meerta noo tahay oo waliba kaga miir caddahay leesanaan joogo masallaha ninkaan ii dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. geela ninkii yaqaana markay naasna aad u diido ka afraysid way ka ridanaysaa maraqa. marka naasnaba waa kuu diidaysaa. waa siyaasad wax. siyaasaduna waxay leedahay isu haad qabasho. ninkii noo haad qabto waa noo haad qabanaynaa. tanna uguma horreyso doorashada ugumana dambayso. doorashooyin baa isdaba jooga oo gudoomiyaha baarlamaanka ugu horreeyo oo madaxweynuhu ku xigo oo ay ku xigaan golihii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka. kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa waxaa tartan ugu jira mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Somaliland iyadoo lagu wado in dhawaan uu baneeyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. waxaana uu gudoomiye Ciro isagu ka qayb gali doonaa tartanka doorashada madaxtinimo ee la filayo in Somaliland ay ka dhacdo dabayaaqada sanadkani. xasan maaldidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa.